صوكلا ولا صوكلا dadka banaanka joogo ee sheekaysanayo aad baan u rabnaa inay noo soo fariistaan oo ay noo soo bixiyaan kuraasta si nidaamka uu noogu hagaaga hadduu ilaahay yidhaahdo in aynu waxa weeye isu nimaadno taasna waxa weeye waan ugu hambalyeynaa sacba la siiyo cabdirasaaq waxaa laga fadhiyaa cabdirasaaq maxamed mc bangal waa nin waxa weeye isagu shaksi markaasi muddayna la joogay inaga warhaya isaga ayaan kelmadda ku soo dhaweyn doonaa cabdirasaaq maxamed waxa uu si gaara ugu dhammaan duqowda guddiga sharafta leh waxaa howlwadeenka arrinkan noo suurtageliyey caawa sida quruxda badan aan iskugu imaanay tolka beerweynta shaqaaleed waa idin salaamo dhammaantiin salaamtaan iska badini oo habeenkii hore hortaan idin imaanaynin ingiriisi sooxili ku hadli baan ahaa saddexda wiigaan ila joogan af soomaali baan zaa'id u bartay nin saa u fahmo badan baan ahaa horta igu qadantaa marka caawa af soomaali way ka shidan tahay af soomaali baan toos ugu hadlaynaa guddiga sharafta leh uu hogaaminayo guddoomiye bashiir saaxiibkay nimanka aad u howl inkaarane howlwadeenka fiican sidii maxamed deni ninka maanta ilaahay ka sokow ay ku suurta gashay inay xafladda quruxda badan dhacdo walaalkay mustaf walaalkay xuseen mustaf abayaalkay ugaaska my fellow brother my colleague MCA aspirant Mandera my brother too Mutuan Rudi wa Muhammad Nur Kamukunji aspirant dhammaan bulshada gabdhaheena quruxda badan shaqada ugu dhiga gabdha quruxda badan adduunka saas mooyeen we have a very beautiful ladies very adorable beautiful ladies masha Allah ilaahay lana ayuumin baan fatxada maraynaa waan idin salaamay samaanta waan ka baxay waxaa jirta xafladan inay aan soo qaban qaabinne ma dhahay aniga suurtageliya ama aniga qabte waa xaflad anaga dhan aan dhammaan wada qabanay oo aad 90% uu Xuseen Mustaf ka soo shaqeeyay guddiga soo maray aniga sidaan imaaday waagi aan idin imaaday waxaan ahaa nin iska qaawan oo intuu meel ka soo kacay hindise keli iska hayo oo rabo inuu meel ka soo istaago Nairobi markaan u imaaday mariyay ii xireen darbe ii xireen this fit I am now sidaasna waxaan ku gaaray nidaam iyo policy iyo protocol aan mare oo guddigan sharafta leh uu ahaa saldhig ama basementkii aan ka bilaabay maanta waxaan ahay ninka ugu cadcad musharaxa hadda marka beesha shaqaaleed ka taagan 90% rajo qaba inuu soo galo 99% waxaan arrinkan markaan soo curinay keligii ka soo fikiray aniga qol ku jiro meel loo joogaanaysa aan ku leenahay waxaan la soo hadlay walaalkay Axmed Hadi the KDF guy wuxuu u sheegay walaalkay Xuseen waan idin soo inaan nutshell waan soo koobi waan idin dheereeyay iga raali noqda Xuseen marka Alan engineer Alan that guy with the white shirt ninkaas uu sheegay Sheekh Cabdi Xay yaa ii suurtageliyay haddana inaan kula daarto oo meeshii habeenkii ka soo hadlo oo 90% of the xafladiisii aniga ii dhaafay maadaama asaga nin rugcada oo mujajuleysto oo wadaad oo aad loo garanayo uu ahaa wuxuu inta miskiinka oo xogaa isbadayo yaan dhaafay meesha ka hadlay marka I love my people dad aad u wanaagsan oo zaid u fiican isku keenidooda waxyar ay hawlto aad u qalbi fiican dad wanaagsan garab istaag maanta meeshan aan taaganahay waxaan ahay waan sahwin hadallada qaar saan wada waan sahwin because I'm too much impressed waxaan ahay qof aad u faraxsan
dadkan aan qabo such an amazing people marka shaqi wuxuu ii suurtageliyay inaan beedkayga meesha ka sheegto from the day aniga waxaan ahay qof iska socdaan ahaa from the day maadaama aan fadhiyo badan soo galay bangal walaalkay ninkii horta league waxaan ku ciyaarahayaa markaan idin yar fafaahiyo league hawiye la dhaho amina hawiye league shaqaaleed ma aha meeshaan ka taagnahay walaalkay wiilka hawiye aspirant for 2020 last election 2017 wuu ii tanaasulay anuu ii tanaasulay markuu ii tanaasulay anigana hadda reerkaygii baan usoo kacay caawada meeshan aan taaganahay ninka ugu kuura badan labada nin ee walaalahay ee intay nin asaga waa Nairobi walaalkay Maxamed Nuur waan ka kuura badnaa meeshan marka hadda intaan ka qaaday ayuu basaga xaq dad badan ku haystay nin oo wuxuu ahaa dadka kabta ka soo dhaweynaya border point u degnaa xogaa fursadaas uu sii dheeraa marka likely dadkii way ii suurta gashay dad badan aan meesha ka qaado muhiimka marka hadda caawan iskugu imaanay ma aha inaan soo guuleysano oo wixii soo helnay still we are on the journey wali waan soconaa arrinkii baan u soconaa but at least inaan moraalka isku dhismo isku imaano wixii jiro ka wada hadalno wixii jiro isku sheegno wixii inoo soo qabsamay iyo wixii inoo dhiman aan ka hadalno aan kala dhigno in a smart formula in a systematic manner aan u kala dhigno arrimaha marka waxaa inoo qabsoomay aniga Cabdirasaaq ahaan haddaan ka hadlo 620 votes transferred from Nairobi new registration and transfer in a span of muddo gudaheeda bil iyo some 14-16 days gudaheeda intaas ku samaynay waa big achievement haddii horaan aan imaan lahaa I never thought if I have such a beautiful people dad saan u qalbi fiican oo sidan ii jecel oo sidan u rabo midnimadeeda dhanag yahay نبدأ ونسافر بصوب بلاد لكن السفر كتير ليتم بلاد. It's not. But هذا بلاد ما هو we can still go to the polls. وأنا رأينا إن شاء الله ونسوقنا in a massive way. مركا وحن إذن مهن علينا عاوكم يكوجر. Thank you so much my very good people. وحائنو بمن تاوتاس وامدي كورها أنت قبلنا وحوليه إيراي أن سوق قبلنا كوريه وحالا ربا دارتي election day دارتي كوري prior a day prior to the election. inaan meeshan ka baxno haweenkii aan bangal barino aw hoosti u geel baan idin qali guriya fiican oo idin seexini bangal yaqeen quraacda badan way noo saartumayeen aan danteeyna waliga music ma dhigaysan caaw laakiin hees baan ku jibooday hees dalma marka yaqeen sharafta lana way noo saartumayeen bulsho ordi oo taartumani oo ciyaari oo beesha qalada dhahan ka taga foom gareynina waa just 4 hours kilometer to bangal bangal waa meel fiican waa meel isku xirta northern part of Kenya the lower Jubaland and Kenya down intaas isku xirta waa meel aad u wanaagsan waa strategic zone for livestock people and Somali wanana we are like waxana pastoralist waa meel fiican oo haddana deegaan aan ka heli karno markaan intii imaado waxa ii suurtagalay oon arkay nin aan meesha ka salaamay caaw fariinteedana la gaarsiiyo la dhaw Cabdullaahi Ilkacse a very good brother of mine هذا الساعي بربو يدقاي أنا يقول سمينا يصوتي محمد أسنى سعني وأنا ونأكسن إن هذا في عواي وحيالك رو ملها لقاها يجيو ملينا ينكسر لكن أنا واحد مقرنا ما بيوا شغال أنا وصلنا ما نحن interest وملهي ورالكي شغالة ورالكي هوية صوماليا كسيكسي كرساني مركان I love my people صومالي بانهاي هوية بانهاي شغال بانهاي أنت سأكون جوكسني marka waxaan la kulmay oo kale oo meeshan aan ka salaamay the grand mullah the city lawyer our lawman Ahmed Nasir Abdullahi waan la tagay aad sharaf u leh waan fiican oo walaalkay been baan ila sheegaa been baan isku sheegnaa annagoo dhan waxaan ana hebel uu cunyo baan arkin waa been wijaja bugon excavas waa been baan isku sheegnaa waraaqda annagoo kala furin baan kor ka aqrinaa dadkan hantida leh oo magaalada city muguls waa reer Kenya waa I'm proud of my people With aspirant to aniga friend ana no regards inta ili imaade markaas all these tall buildings belongs to your family cidina iskale well something wonderful I push again the pictures were indicating whenever you take a picture sawirka is more than what you say sawirka qofka la qaadato talks more volume than what you say verbally afahan waxa ka dhaado ilaa tararare Soomaaliyan ku soo noqonayna marka dad wanaagsan oo fiican oo mahad celin hadii aan dhaho waan mahad celin caaw inta habeenkii ka dambeeyay iska wadi karo way dadkayga
waa liiga dambeeya aad iyo nusii faafin aan soo yarka gaabiyo marka waxaan rabnaa kurihii aan jarnay inaan meeshan madal aan ka qaadi lahayn kuraha oon iska raaci lahayn xafladan waxaan ku soo dhaweynay walaalaheen ugu soo dhaweynay maxamed nuur iyo walaalkay senior chief MY Mutua Mandela inay ayagana wixii arrimo oo iskula daarashana iska noqday arrimo ay ka sheeganayeen ay ka sheegtaan howlahoodii waa faan wixii aniga idana ayaga u danay anigana wixii idana aan ayaga u danay waa likewise dad oo waxaan nahay walaale dad aad isku jecel gabadha hadda walaalkay uu sheegay oo intay iyada kuuraheedii ma ahayd gabadhii u shaqaynaysa keentana waa gabadhaas thanking her so much Maryam gabadha bay keentay shaqaale iyada oo iyada u shaqayso waxaan ugu tegay meeshan horta aan daaraan shirka isbiimaadkiisa iyo midnimada iyo xafladaha iyo howlahan aad ugu fardheer maxamed duni وأنا نادي سكن هذا وعلا وحن كلام ماشي كسلام هذا سلام يمد علم بانو قدري وأهرما كده بيادر كي عبد القادر أفدره وهذا ماشي كم مكان ولا شيء دغا تذكر وفر بدنيا تذكر وسكفر بدنيا أدو فر بدنيا all these people are my people one إذن جعل هاي أدي أنا لو ما أنت أفصومالي وأحد بكسو كوي وأبنداس I cannot be finishing my words in not form in either verbal form or in not form I love you so much my very good people